Unit 2. How was your vacation? Hey! How was your vacation? It was very fun. Where did you go? I went to the beach. Who did you go with? I went with my father, mother, and older sister. Do you have a house at the beach? No, we stayed at a hotel. Which hotel did you stay at? It's called the Imperial. Have you stayed there before? Yes, we've been going there for years. Must be very nice. Yes, it's very nice and not too expensive. Did you play in the water? Yes, I went swimming and I rode the banana boat. How about your older sister? She does not like the water. She likes to sit on the beach and read a book. What do your mother and father like to do? They like to eat in the restaurant. How long was your vacation? 3 or 4 days. And will you go there again next year? Of course. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada ardayda, waa cashirkeenii labaad ama unit 2 iyo maalinkeenii labaad aynu cashar ka qaadanayno ama kooraskeena. cashirkeena waxa uu ku saabsan yahay ciwaankiisu How was your vacation? sidee buu ahaa fasaxaagii? How was your vacation? sidee buu ahaa fasaxaagii? How was your vacation? sidee buu ahaa fasaxaagii? It was very fun. wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan. It was wuxuu ahaa very fun, mid aad u xiiso badan. Where did you go? xagee baad tagtay? Where halkee? Did you go? halkee baad tagtay? I went waxaan tagay. kelmadan went waa baasti ama waa wax tagay oo waa fal tagay. presentigeedu ama wax hadda jooga waa go. I went waxaan tagay mar hore to the beach, xeebta ayaan tagay. Beach waa xeebta. I went to the beach waxaan tagay xeebta. Who did you go with? yaad israacdeen. Who qof ma? Did you go with? qof maad israacdeen. I went waxaan raacay with my father aabahay, mother hooyaday, and older sister iyo walaashaydiiga weyneyd. I went waxaan raacay with my father aabahay, mother hooyaday, and older sister iyo walaashaydiiga weyneyd. Do you have a house at the beach? xeebta guri miyaad ku leedihiin? Do you have a house at the beach? xeebta guri miyaad ku leedihiin? No, maya. We stayed at a hotel. waxaanu joognay hotelka. No, maya. We stayed at a hotel. waxaanu joognay hotelka. Which hotel? hotelkeebaa? Did you stay at? ayaad joogteen? Which hotel? hotelkee? Did you stay at? ayaad joogteen? It is called waxaa la yidhaahdaa the Imperial. Imperial baa la yidhaahdaa. Have you stayed there before? miyaad joogi jirteen hadda ka hor halkaas? Have you stayed there before? hadda ka hor miyaad joogi jirteen halkaas? Yes, we have been going there for years. halkaa waxaanu joogi jirnay sanado. Yes, we have been going there for years. waxaan joogi jirnay sanado. It must be very nice. waa mid aad u wanaagsan. It must be very nice. waa mid aad u wanaagsan. Yes, it is very nice. waa mid wanaagsan. And not too expensive. qaalina maaha. Yes, it is very nice. waa mid wanaagsan.
and not too expensive qaalina maaha. Do you play in the water? Did you play in the water? miyaad ku ciyaartay biyaha? Did you play miyaad ku ciyaartay in the water biyaha? Yes, ha, I went swimming. waan dabaashay. Yes, ha, I went swimming. waan dabaashay. And I rowed waxaana fuulay the banana boat doonta muuska. Yes, ha, I went swimming. waan dabaashay. And iyo I rowed waxaan fuulay the banana boat doonta muuska. kelmadda boat waa doon, bananana waa muuska loo yaqaana ama muus. How about ka waran your older sister walaashaadii kaa weyneyd? How about ka waran your older sister walaashaadii kaa weyneyd ka waran? She doesn't like the water. biyaha may jeclayn. She likes waxay jecleed to sit on inay fadhiisato the beach xeebta and read a book bookna akhrido. She doesn't read the water. biyaha may jeclayn walaashay ama inay dabaalato may jeclayn. She likes waxay jecleed to sit on inay fadhiisato the beach xeebta and read a book bookna akhrido. What do your father and mother like to do? maxay hooyada iyo aabaha jeclaayeen inay qabtaan? What maxayba do your father aabaha and mother iyo hooyada like ay jeclaayeen to do inay qabtaan? They like waxay jeclaayeen to eat in the restaurant inay wax ka cunaan hodheelka. They like waxay jeclaayeen to eat in the restaurant inay hodheelka wax ka cunaan. How long was your vacation? intee in leeg buu ahaa fasaxaagu? How long intee in leeg was your vacation ayuu ahaa fasaxaagu? 3 or 4 days. 3 cisho ama 4 cisho ayuu ahaa. 3 or 4 days. 3 ama 4 cisho ayuu ahaa. And will you go there? halkaa miyaad tegi doontaa next year sanadka xiga ama soo socda? And will you go miyaad tegi doontaa there halkaas again mar labaad next year sanadka soo socda? miyaad tegi doontaa sanadka soo socda halkaas mar labaad? Of course dabcan. Of course dabcan. Vocabulary study barashada kelmadaha oo waa kelmado aynu ka soo ururinay casharkeena. meel ku qoro, xafid, micnahoogana waa inaad barataa Soomaali. Vocabulary study barashada kelmadaha. Beach waa xeeb. Beach waa xeeb. Stayed waa joogid. Stayed waa joogid. Swimming waa dabaalasho. Swimming waa dabaalasho. Go with waa raacid. Go with waa raacid. Called loogu yeedhaa. Called loogu yeedhaa. Restaurant waa hodheel. Restaurant waa hotel. Older waa ka weyn. Older waa ka weyn. Expensive waa qaali ah. Expensive waa qaali ah. Next year sanadka soo socda. Next year sanadka soo socda. Row fuulid. Row waa fuulid. Examples tusaalooyin. Examples tusaalooyin ayaynu ka samayn doonaa. kelmadahan ayaynu gelin doonaa jumlad. tusaale, I went to the beach. waxaan tagay xeebta. I went to the beach. waxaan tagay xeebta. Who did you go with? yaad israacdeen. Who did you go with? yaad israacdeen. I went with my father. waxaan raacay aabahay. Mother hooyaday. An older sister iyo walaashaydii iga weyneyd. We stayed waxaanu joognay at a hotel hotelka. We stayed waxaanu joognay at a hotel hotelka. It is called waxaa la yidhaahdaa the Imperial. Imperial baa la yidhaahdaa. It is called waxaa la yidhaahdaa the Imperial. Imperial. Yes, ha, it is very nice. waa mid wanaagsan.
and not too expensive qaalina maaha. Yes ha, it's very nice waa mid wanaagsan and not too expensive qaalina maaha. Yes ha, I went swimming waan dabaashay and I rowed waxaana fuulay the banana boat doonta muuska. They like waxay jeclaayeen to eat in the restaurant inay wax ka cunaan hodheelka. They like waxay jeclaayeen to eat inay wax ka cunaan in the restaurant hodheelka. And will you go there again? Halkaas miyaa tegi doontaa mar labaad? Next year sanadka soo socda. And will you go there again? Miyaa tegi doontaa mar labaad? Next year sanadka soo socda halkaas. halkaas buu ku dhamaaday casharkeenu. wixii su'aalo waad iga weydiin kartaa. aad u mahadsantahay.